أجانب مين ها إثيوبيان أورماو وحسون ودن كان إثيوبي مقالة دولو أنا وحنا سؤالني دروس الشرعية على سؤالني إثيوبي لقوا هالك لقد دمناي ما فهم حدي شباب إيين بليال جداد محكو بحفظ أبو إرشادي أبو صفية موقع هذا الكب واحد أمالين يسائني يهين صومالي أن بي اسمرين أو أصل غير درجحه بل سوى إثيوبيان برتي أفكهوي أو كهذا الكيسبة كبض يسي والله ذا قربها كوكرتي وحين سفر دير أصو قلن أو جق يهود أصو مرين إني كبر بردقالمان أرقاق حسدا halkaas oo ay u arkeen inay tahay dabihii gen lahaa jannada xamsi ibraahim cali abu irshaad iyo nasri cabdiraxmaan cali abu safiya oo labaduba u dhashay qowmiyadda oromada ayaa ku soo barbaaray waxna ku bartay magaalada harar ee dalka Itoobiya sanadkii 2025 ayayna go'aansadeen inay ku biiraan qawaariista kadib tashkiilinta orom kale oo lagu magacaabo Shacbaan Maxamed argagixisada u qaabilsan qaybta soo xirigelinta dhalinyarada u dhalatay qowmiyadaha Itoobiya safar dheer kadib saako jubbada dhexe ayay iska xaadiriyeen waxaana loo sii gudbiyay Bu'aale halkaas oo ay ku qaateen tababar socday 3 bilood laguna baray isticmaalka hubka noocyadiisa kala duwan tababar kadib waxaa lagu daray qaybta jabhadaha waxayna ka qayb qaateen dhagaro isugu jiray weeraro toos ah dhabagal iyo arbushaad muddo kadib ayaana loo soo wareejiyay gobolka Bay xilligaas oo ay heleen fasax ay ku booqan karaan eheladooda ciidankii hay'adda sirdoonkii nabad sugidda qaranka ayaa ka qabtay kontaroolka maayafuulka ee magaalada Baydhabo iyagoo saaran gaari barobakis ah 22kii bishii afraad ee sanadkan labada eedeysane ee la kala yiraahdo Xamse Abu Irshaad iyo Nasri Abu Safiya labaduba waxay ka soo safreen dalka Itoobiya magaalada Harar waxay yimaadeen Saako waxay ka sii tageen deegaano badan oo ka tirsan gobolka Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose sidoo kale waxay yimaadeen gobolka Bay ujeedka markaas fiirisid mudane gudoomiye waxay u yimaadeen waa in ay tababar ku qaataan gobolka Jubbada Dhexe kuna biiraan kooxda al-shabaab shaqada shabaabnimana waa ay galeen waa ay tababarteen dharka ciidanka loo qeybshay waxay tageen gobolo badan waxay u diyaar garoobeen oo diyaar garow dagaal ay ka galeen deegaano badan ugu dambeynna iyagoo dhuumaaleysanaayo rabana inay soo galaan magaalada Baydhabo ilaa Doolow ayaa waxay qabtay ciidanka hay'adda nabad sugidda waxaana laga qabtay iyagoo Baydhabo soo galay sanayaashu waa ajaanib magaalada Harar sidaan ognahay waxa degan dad gaala ah iyo dad muslimiin ah laakiin deegaanada Soomaalida 100% dadku waa muslimiin marka diinta uu Soomaaliya ku fidinayo Abu Safiya iyo Abu Irshaad koox qawaariid al-shabaab u bixishan waxay ay magaaladu ka fidiyaan magaalada u baahan Harar u baahan Abu Safiya waa ogyahay Abu Irshaad waa ogyahay marka ujeedku taas maaha ujeedku inay laayaan ummadda Soomaaliyeed iyagoo shaar qawaariid u gashanayaan waana arin qatar al-shabaab horta galadu waa jirtaa waan galay sistaan ku galay anuu marka hore al-shabaabna mana maqlin al-shabaabna mana garanaynin waxaan baranayay anuu duruusta cilmiga ayaan baranayay aniga walaalkooda jirooda baranayay meel ku baranayay maadaama duruusta sharciga aan garanayay meesha wadankeena ahayn ayaa tagnay oo wax baranayay wadanka qof ku nool ayaa shaqo u socdaa inta leeydi meesha ka tagay markiibu isagu shabaab dhaxdeeda soo aaday anaga shabaabtana ma garanaynin waa isgaranaynay وانا سوعي لمبركيغنا ما هيسن انيغا isoo toos kuma garanin isaga toos isku garanayeen labadooda lambarkayga aniga dadka lu ka raadiyay way soo wacay isagana gaar ah wacay ana gaar ayay soo wacay wuxuu nagu yiri meelad duruusta cilmiga aad ugu baratiin duruusta sharciga ayaan idin hayaa kaale uu nagu yiri madrasadana caruurta aad ugu dhigtaan haye duruusta anagu waxa raadinaynay ayay baan ku dhahnay walka joogtaaba weydiinay anagu waxaan joogaa buu nagu dhahay Kenya magaalada Nairobi anagu lambarka Soomaaliya waligeen wadanka inta ka baxnay lambar kale ma arkin oo ma garanay lambaradan hay'aba dhahnay marka wax yar muddo 2 usbuuc wax marka joognay waa soo baxnay wadanka ka sidii ay wadankeena iyaguna hagaajinayeen marka mooyaale ku tagnay anagu waxaan u soconay duruusta sharciga u soconay marka mooyaale mooto noo soo direen anagu waxaan weysanay isla halkii aan weysanay sidii mootada meesha noo qaaday saako weyna geesay sidii baan u galay shabaab marka horta meesha tagnayba anagu hal iyo falsi ah u baxnaa markaan aragnay waxay tahay
si aan u baxno ayaa raadinaynay meesha telefoon kuma haysanin lacagna kuma aan haysanin si aan u baxno culays ay nagu noqotay dhulkana ma kala garanayno sidaa daraadeed ba wasi joogna iyaguna qasab ay nagu wadeen qasab xoog ay nagu wadeen tan soo beeniyay qasab ay nagu wadeen hadana sidaa daraadeed ayaan tababarka waa galay waa soo tababarnay waa ka soo baxnay horta wax dagaal la yidhaaho ma galnano see tababar waa soo qaatay hubka waa laysiiyey inta tababarka soo qaatay hubka soo mareeno 6 bilood weeyaan intaan hubkooda qaaday 6 bilood weeyaan tababar waa soo maray hubkana waa qaaday anu hadda markaan soo soconay anaga markii bay ana la keenay anagu waan baxaynaa allahin marka horeba telefoonadana marka farana lagu qaybiyay anagu mootale ayaa waxaan yar wareysanay walaalaha Soomaaliya wareysanay halkii la mara halkan la mara wixii maxaa la yiraahdaa daynuunay ku daga halka mara magaalada maxaa la yiraahdaa magaaladan baydhabo dowladda Soomaaliya dowladda Itoobiya halka ay wadada martaabana lagu dhahay sidii baan meesha saad telefoonkan loo siiyay aan soo qaadanay mooto dalbanay soo raacnay sidii baan u imaanay askarta dowladda ayaa xagga wixii nagu qabatay waxa la yiraahdaa baydhabo anagu soo galayna xagga hore anaga markaan xagga joogo ninkaas telefoon waa noo soo diray waa noo soo wacay markaan noo soo wacay ninkaas nin garanayno waa nin xagga marka joogno waa iska seena marka waxaa noo dhahay asaa Kenya joogo waa noo sheegay shaqadaada maaha way waa weydiisanay shaqadii waxbarasho ku jiraan noo dhahay waxbarasho cilmi ah shaqadii waa taas waxbarasho haddii rabtaan ii imaada waa noo dhahay hayee waa soo baxanay anaga si qaldan waa soo baxanay laakiin shabaabi iyo shabaabnimo intaan waa soo aragnay intaan waa soo maqalnay mar hore shabaabna ma maqlin wixii shabaab la dhahay ma maqlin marka anaga dhulka ma kala kasayna moogta marka mooyele u tagnay mooto waa noo soo diray mootona waa noo soo qaatay waxaan u geeytay saako markaa tagnay waxay qaldan waa aragnay markaas kadib hal sana meelahaas marka hagga joognay waa soo laabanay anaga marka magaalada baydhabo wadada marka soo galna waxa soona wadankan Itoobiya magaalada waxay doolo baara ka socday hay'adda NISA gacantana ku hayay galkan min bilow iyo maanta oo laga garnaqayo ayaa maxkamadda la wadaagay natiijada ka soo baxday baaristiisa ku-xigeenka xiraaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida dhamme cabdiyare ayaa maxkamadda ka codsaday in eedeysanayaasha ay ku xukunto qodobadii uu ku soo eedeeyay horta magacyada waxa u baxshay kooxda qawaarijta al-shabaab ninkan Abu Irshaad u baxshay ninkan Abu Safiya u baxshay mudug gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh qodobka 6 faqradiisa 2 wuxuu ka hadlayaa ku biirista kooxda qawaarijta al-shabaab faqradiisa 3 na waxay ka hadlaysaa in tababar loo qaato qodobka 10aad ee xeerka dagaalanka argagixisada wuxuu ka hadlayaa tababarte ama tababar qaata in la noqdo cawaaqibena leedahay mudug gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh haddii kooxda qawaarijta ay ku taagan yihiin jid saxan waxay ahayd magaalada ay ka imaadeen haddii dad diinta ugu yeerayaan ayadaa gaalo jooga inay gaalada halkaas ay ugu yeeraan ahayd laakiin waxay naga dhadhacsii hayaan oo caqliga caadigan uusan qabanaynin qof muslim ah oo dukado oo korkiis laga adumaayo oo 5 salaad dukado oo hadda salaad subax ugu dambeysay soo dukadeen in la qarxiyo la dilo la baabi'iyo waxaas diinta islaamka dhigi mayso mana banaano qof muslim walaalka ah oo ashhadanayo in aad disho dhiigiisna oo soo safarto Xamse iyo Nasri waxay u soo safreen ay u soo baxeen koox noocaas ah inay ku biiraan ma ku biireen ha waa ku biireen tababar ma qaateen ha waa qaateen qiraal ma leeyihiin intaas ha waa leeyihiin ajaanib ma yihiin ha Itoobiyaan oramada markaa weydiisa qaar gaala ay ku leeyihiin qaar waa muslim ma ayaga u yeero ayaga walaalooda u dhow oo deegaanka oo joogay ka dhowdahay marka waxa kaliya ay
soo aadayaan ay soo aadeen Xamse iyo Nasri wadanka Soomaaliya dhibaatada iyo culayska inay ku kordhiyaan maana ahan wax sax ah iyo wax sharci ah xeerka la dagaalanka argagixisadan waxa loo dhigay waa inuu la dagaalamo dadka noocaas u dhaqmay muddo gudoomiye garsoor maxkamad sharafta leh waxaan ku soo eedeynay ururkaas hubeysan oo lid ku ah qaran dumis miinis qaran dhisnaa inay dumiyaan qaranka waa dhisan yahay dad muslimiin ah boqolkiiba boqol ma ahan dad gaala ah dad ashaato oo dukada waay marka waxa Itoobiya laga waayay ee halka laga duminaay ma fahmi karo salaaligeeda waxa jira mid gudoomiye garsoor maxkamad sharafta leh ajaanib kale oo Oromo u badan oo kooxda qawaarijta ah wala jirto ayaga isku tabarahayeen si marka waano iyo wacdi iyo adag iyo inta laaba adag laga qaadayo u dareemaan maxkamadda sharafka waxa ka codsanayna qodobka shanaad iyo lixaad faqradiisa koowaad faqradiisa labaad qodobka 18aad ila la aqriyo qodobka koowaad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida in lagu xukumo si ay uga waantoobaan kuwa ku soo socdo jidkaas qaldan iyo kuwa hadda ku jira iyo kuwa ay ka soo tageen si uga waantoobaan Xamse iyo Nasri inay ku xukunto qodobada aan ku soo eedeen maxkamadda maasanta qareenka eedeysanayaasha ayaa muwakkiliintiisu u codsaday in laga qafiifiyo ciqaabta maadaama ay qiraal yihiin loona celiyo dalkooda si ay dib ula midoobaan eheladooda magacay Ibrahim Maxamed Ali Agmadhige qareenna ah Xamse iyo Nasri sidoo isu qaba qodobka 15 heerka habka ciqaabta Soomaaliya muwakkiliinta markii la weydiiyay jawaabtiyo biyeen maxkamadda dhigaasi qodobka 104 iyo 105 dabaadaha ishortaag dacwadi ama wali la ka eeday ma garan sababtoo ama sheegana inay ilmi raadsadeen oo shareeca fiqhi barashadiis koonfurtan Soomaaliya ka baxeen kadib lanqaldan ka hagi dhulkaas markii seedeen ogaadeen galeen halsan waldhon yo ahan roogn inay ku tabeen sida heer ilaalintana sheegdi baarahana sheegi inay dhuumadeen marka hadii yo shabaab iyo ma dhuumada fadna shabaab ma dhuumadaw shabaab yeel rooge wali dile ma bahaw inay habaheen mootaha qaadadeen oo doynunay arda ka kooyan doynunay baaburha ku raxeen la sheegi heer ilaaliyana sheegi baarahana sheegi may kale la sheegay baaraha may sheegay inay nimankan maalintii hagaleen bil gobode may kale hadal ka jirtay hay'ada ammaanka mahanis dhiibna ama has dhiibaan kooyan horba ku gobatay ama has dhiibaan marka ani arda eedlaha ka eeday in lahayn adeen injarn adeen oo saasay meelin on ku jarn sida qodobka boltumun hal fiiriyoy ani eedlaha ka eeday qodobka 111 in la bedel eedan waa waliyo ban hayne la ka eeday lan hadhuumadi awal ilmi barshahan bahi hadii shabaab an galan gali ha ku dhuumadi mootaha rahi kooy marka eedla ka eeday ma qobad marka qarasho la'aan ya meel ku jarta sida qodobka 109 qarasho la'aanta yoo shabaaba in marn seeniyareen markii ogaadeen ha ku tabeen markii galan muddo wal tawbari si yoo sheegeen laakiin awal min seeniyareen ilma barasho in kooyni shariica islaamiya in baradaan ahaan baheen shariicada islaamki meeli baar dheer ku fadaayeen laga hegi meel saaka galadi dhammaan heer ilaalintana sheegdi baarahana sheegi inni 2025 ha ka biireen 2020 bilishanaad inaha ku baheen ama bili afraad baha ku baheen hadii shabaab iin biliyaal gudaaj ma ha ku bahafad ka jara fadeen dhowr bilood inni ka jaraan walaa yoon ka ganacsanayn walka galadi fiqhi barashadiisa weydiiyeen sida yoob afsho in ka gareen haddana maxkamadda hortiyo ka gareen in la qaladiya sheegeen marka saas daraadii anay liin fududaay qodobka la ka eeday ma qabaan ma galna
marka maxkamaddu may koodsaday inay anfududayd eedii laha ka eeday dembigiina la ka waayey siduusa qaba qodobka 122 heerka habka ciqaabta Soomaaliyeed inay dembigii la ka waayey musaafur iyo araadiyo injeedeen la kanaga maadaama araadiyo han bahan qashqashaadaas ku dheedi wabillahi tawfiiq maxkamadana ma hadsantay maxkamadda maxaa ka codsanaysaa inay wadankii iyo soo celiyaan ani waxaan rabaa wadankii inuu soo laaban rabaa reerkii qaraabadii waa soo laaban rabaa wax kale dib wax kale ma wado wadankii inuu soo laaban rabaa أنا محكمة waxaa ka codsanaya maadaama qof مظلوم ahay aan cilmi raadinayay aan soo khalday meesha loo soo mariyay waxaan ka codsanayaa maxkamadda inay xorriyaddeeda ay siiso ayaa ka codsanaya maxkamadda garmaqalkan oo maanta ka qabsoomay magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed ayaa ugu dambeyn waxa soo xiray gaashaanle sare Cabdulbaari oo ka tirsan garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida Cabdiraxmaan Gacan warbaahinta qaranka magaalada Baydhabo